markay duushay gaaladu anaan daafadu rariine kortay dareeraan anaan dira duuqabaane anigaan ku galan dabadinaareede anaan labaada darootan hore derejo moodeyne markay duushay gaaladu anaan daafadu rariine kortay dareeraan anaan dira duuqabaane anigaan dariiqiyo wadada dawga sii mari kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawataay kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo idinka imaanaya telefishinka caalamiga ee Soomaali Star. barnaamijkan gaarka waxaynu ku eegi doonaa taariikhdii iyo weliba halgankii daraawiisheed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiishtii uu horkacayay. barnaamijkan oo aan hubo inuu yahay mid aad u xiiso badan isla markaasna aad ka bogan doontaan aynu ku qaada dhigi doonaa taariikhdii daraawiisheed ee markaasi horkacayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo markaasi kula dagaalamayay isticmaalkii gumaysidoonka Soomaaliya markaasi doonayay inuu kala faquuqo. barnaamijkan gaarka oo markaasi aan ka soo diyaarinay istuudiyaha aan ku leenahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaasna ay nagala qayb qaadan doonaan aqoon-yahano iyagu markaasi taariikhda daraawiisheed aad u qorfeeya oo markaasi u toogson ayaa waxa aad ku maqli doontaan ama aad ku daawan doontaan muuqaalo kala gedisan iyo weliba warbixino dhaadheer oo markaasi aynu ku qaadaaligi doono halgankii daraawiisheed ee markaasi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ciidamadii daraawiisheed ay ku doonayeen inay markaasi isticmaalkii gumaysiga ay ku kiciyaan. dabcan barnaamijkan gaarka waxaan la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cismaan Cabdinuur. haddii aynu markaasi sharaxaad kooban ka bixino taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu dhashay taariikhdu markii ay ahayd 1856 gugii markaasi la baxay amaba la oran jiray gobaysane ee markaasi uu sayidku dhashay. waxaana gugaasi ahaa gu barwaaqo oo markaasi dad iyo duunyo wixii markaasi dhashayba ay hana qaadeen. waxa uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku dhashay bali la yiraahdo Sacmadeeqa oo qiyaastii 7 mayl u jira magaalada Buuhoodle kana xiga dhanka waqooyi. guud ahaan dalka waxaa loo yaqaan xilligaasi Nugaal. hooyadii waxaa la oran jiray Araseed Magan. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu Quraanka Kariimka ku xafdiyay xero ay lahaan jireen xerta markaasi oo ku taalay Nugaasha. xeryaha ugu waaweyn ee markaasi culimadaasi ay lahaayeen ayaa ku yaalay dooxooyinka loo yaqaano Asuura iyo Yaahel. 1892 waxa uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan u kacay Maka iyo Madiina waxayna israaceen sida taariikhdu ay qorto 13 wadaad oo isku reer ahaayeen. laba gu iyo dheeraad bay Maka iyo Madiina ku maqnaayeen. 1895 ayaa Sayid Maxamed uu ku soo noqday dhulka Soomaalida waxa uu ka soo degay xeebta magaalada Berbera oo markaasi muslim iyo gaalaba aad loo deganaa. waxa la yiri markuu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan doonida uu la socday ka soo degay Ingiriiska ayaa iyagu markaasi waxay dekada ku yiraahdeen keen cashuurtii iyadoo markaasna uu sayidku ugu afceliyay ninkii markaasi cashuurta weydiiyay adiga yaa cashuurtii ka qaaday iyadoo markaasna ay Ingiriisku sayidka u bixiyeen mahmaadii hana qaaday markaasi sayidka la oran jiray wadaadkii waanla amaba demaad mulla. dagaalkii u horeeyay ee markaasi daraawiish ay gasho waxa uu ahaa 1900kii. Ingiriiska oo col lixaad leh soo qalqaaliyay si loo damiyo dabkaasi ka baxaya intuuna dhulka ku fidin. haddaba xabadihii markaasi bilaamay ama dagaalkii bilaamay waxa uu soconayay ku dhawaad 20 go. inta la hubo ama taariikhda loo qoro 41 goobood ayaa Ingiriiska iyo daraawiish ay ku kulmeen waxaana 41kaas dagaal bay ahaayeen kuwa waaweyn oo markaasi naf iyo maalba lagu waayay. haddii aynu soo qaadano qaar kamid ah dagaaladii ugu baanaa ee markaasi dhexmaray daraawiishta iyo Ingiriiska waxay kala ahaayeen dagaalkii Afbakayle oo dhacay 3 bishii shanaad ee 1901 sidoo kalena dagaalkii Firdhidin ayaa isaguna waxa uu dhacay sida ay taariikhdu qorto 16 bishii 7 ee isla 1901. beerdhiga waxa uu isna ahaa 10 bishii 8 ee 1902. cagar weyne oo isna dhacay 17 bishii 4 ee sanadii 1902.
daratoole isna waxa uu dhacay 18 bishii afraad ee sanadii 1903 dagaalkii Jidbaale isaguna waxa uu dhacay 10 bishii koowaad ee 1904 dagaalkii Ruuga ayaa isaguna waxa uu dhacay 9 bishii tobnaad ee 1913 sida ay taariikhdu qarto sanadku markuu ahaa bishii koowaad 19keedii 1919 ayaa diyaaradihii ugu horeeyay lagu duqeeyay caasimadii markaasi ay deganayeen daraawiishtu ee Taleex haddaba si aynu wax badan uga ogaano bal halgankii daraawiisheed iyo dagaaladii markaasi dhex maray Ingiriiska iyo daraawiishta aan markan idii kala baxo Caaqil Ismaaciil Maxamed Cali Koore oo markaasi ah caaqil isagu markaasi inta badan u tooga haya taariikhdii daraawiisheed haya caaqil taariikhda daraawiishtu waxa weeyaan qarniga hore waxay taariikh cad runtii magaca daraawiishta la yiraahdo waxa weeyaan waa magac Farisiya wuxuuna ka yimid dalka Iiraan macnaheeduna waxa weeye kii u dhibaatoobay oo u hawlgalay oo dhib badan u baxay jihaadka islaamiga marka magacu saasi u yimi waa darwiish daraawiishtu waxay ku timi markay timi berberay ka soo degtay ilaa 6 nin bay ahaayeen xaaji suudi baa kamid ah shabeele oo bixin buu ku shahiiday maalintii daraawiish la jabiyay waxa kamid ah ina shahiri waxa kamid ah Sayyid Maxamed Abdullah Xasan oo bidcada madaxaha waxa kamid ah Aw Cabbaas oo lagu dilay Ugaadeniya intay daraawiishta aaday daraawiishtu halgankeedu wuxuu bilaabmay 1898 si rasmiyana wuxuu bilaabmay intii hore abaabul iyo bay ahayd iyo in dadka la wacyi geliyo oo jihaadka lagu wacyi geliyo iyo gaalada dhulka qabsanaysa waxa weeyaan jihaadka daraawiishtu wuxuu bilaabmay toos u bilaabmay markay degtay 1901 qalcadahana ka dhistay ay intii la fadhiyay 1901 labadii saddexdii intii laga gaaray wuxuu sayidku doonayay inuu isku ballaariyo strategically south oo markaas waxa weeyaan koonfur ilaa xamar Soomaaliya koonfurteeda inuu isku ballaariyo iyo inuu isku ballaariyo dhinaca koonfur galbeed oo Ugaadeniya dhulka loo yaqaan hadda ama dhulka maaragtay Itoobiya hadda haysato Ingiriisku aad buu uga horjoogsaday wuxuuna ku soo kiciyay gulufyo badan waxa kamid ah dagaalka Cagaar Weyne waxa kamid ah dagaalka Gumburo waxa kamid ah dagaalka Fardhidin waxa kamid ah dagaalka Caana Xarigle dagaalada dhamaantood waxa ku guuleysanaysa daraawiishta ay bayna xaruntooda ay daraawiishta 1904 waxa dhacay dagaalka Jidbaale sida uu ku qeexayo dalas jardin buugiisa maarmulla waxa weeye tactical and strategical marka qoray daraawiishtu khalad ka gashay waxa weeye dagaalkii Jidbaale oo aad loogu jabiyay sababtuna waxay ahayd awoodda dabeed oo gaaladu haysato ka badnayd sida darteed daraawiishtu waxay ahayd dagaalkeedu Spartanic war ama guerrilla warfare bay ku dagaalameysay oo gaalada ku jabinaysay walakin dagaalkaas wuxuu ka dhacay meel bana awood badanna waa loo isticmaalay oo dabeed ilaa taar baa la dhigay sida darteed daraawiishtu way ku jabtay markii dagaalka ciidanku diyaar garoobay oo la amray dagaalka xarunta falaad laga amray waxa la yiri dagaalka falaad ma ahayna markaa waxa ayl baa la fadhiyay waan khaldamay ayl baa la fadhiyay dagaalkaas 1904 buu ahaa qalad weyn baa ku dhacay daraawiishtan aadna waa loo jibiyay toos baa loo jibiyay sida ay dadka aqoonta Soomaalida historiankeedu sheegayso ilaa dhowr kun baa ku dhintay sida ay leeyihiin Soomaalida raggeeda historianka daraawiishtu sida cad buuga ku cad la yiraahdo Rain Beach uu qoray oo la yiraahdo The Warrior Mullah oo ahaa professor Canadian markii kana ahaa Makerere University professor ama associate professor waxa loo yaqaan muddo joogay buugiisa uu qoray wuxuu ku sheegay ku qeexaya in daraawiishtu 20 sanadood 20 sanadood uu beejka ugu horeeyay ku qoraa jariidada la yiraahdo ilaa hadda soo baxdo la yiraahdo Daily Express wuxuu dooranayay sida buugaaba ku qoran
وحوي دراويش the main state المدى الاستعمالية the main state of دراويش وحوي وحي هاي تذكر بالكانتيجا والبهنتها اللي يقالوا قرني كان هنقاضي تذكر بربا مربا إلهي سبحانه وتعالى تذكر مربو هنقاضا تذكر أسوأ حي قرني تقالي ثم تذكر وجوه هنقاض الصومالي ده فالله قلت الماما جيل يفرضه يحوله يدل أدوه نفسه كبعدنا سيد كوحي مركا وكخصبنا dhulka uu gaaladu ku soo jeedo berbera markuu ka soo dego dadka uu ku soo jeedaana waa dhulka weey sidaa darteed uu ku khasbanaa dhul biyo iyo baad iyo fardo iyo xoolo iyo ragba ka buuxa inuu dhulka ka aasaaso uuna ku guulaysto uu ka aasaaso anadiiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan dabadinaareede anadiiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan dabadinaareede anaa labaa gaala nacaybka iyo maaragtay waxaan ka maaragtay markiiba enthusiastically waxa weeyaan arrimaha kiciyey waxa weeye dadku muslim buu ahaa ba hasta yeeshee diintu kuma badnayn oo diinta iyo culimada iyo kuma badnayn dadka aqoonta diintuna way yaray biniaadankuna markuu hana qaado dib badan buu yeeshaa oo way iska kibir badan yahay biniaadanku marka ma ahayn arrintu saa kuma laakiin sayidku markuu abaabulay oo uu wacyi badantii ku bixiyey uu wacyigeliyey dadka toos bay u qaateen marka halgankiina way bilaabeen toos markii hore wuxuu ku soo horreeyey dhulka oodaca oo hawdka buu ku soo horreeyey nugaal markiiba ma deginba isagu nugaasha uu dhaafay ayl buu u dhaafay ha sidaba nugaasha waxaa loo degay oo toos loo degay 1912 asaaskii tale markii hore waxa weeyaan darawiishtu way guuraysay ilaa ay ayl degtay si rasmi uga degay anadiiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan diiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan wuxuu u fahansiin jiray wuxuu u gudbi jiray runtii literature ahaan buu ugu gudbi jiray marka ma ahayn arrin yar wuxuu ugu gudbin jiray xukun ahaanna waa ugu gudbin jiray markuu awoodda yeeshay inuu dadka ku khasbo laakiin wuxuu ugu gudbin jiray literature gabay buu ugu gudbin jiray iyo hanuunin iyo dadka in laysu keeno oo markaa lagu dul akriyo oo janno iyo wacyigelin oo iyo diinta iyo jihaadka looga sheekeeyo sida ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم أحياء ويرزقون أيضا سأل وجود الأخرية جهاد بينهم براكتيكالي نوال أركي إن جهاد هاي الرنتاس ugu badan oo ku dheerigelinay waxaa ka mid ah gabayga gudban waxaa ka mid ah gabayga jiilay waxaa ka mid ah gabayada heesa ugu badan de dalka malihi anigaa ku yidhi dooro weynahe anaa diiday maalintuu lahaa dinyooga hoy anaan labada daarood hore darajo moodayn inkastay gabayadiisi u dambeeyey ahayd runtii marka waxa weeyaan gabayadiisi literature buu ugu gudbi jiray gabayadiisuna waa gabayadiis waa classic wey waa gabayada ugu qaali ugu sarreeya soomaalida marka loo eego oo cilmi ugu cilmina waa gabaygiis oo wada cilmi weeye anadiiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan dabadinaareede anaa labada darootan hore derejo moodeyne markay duushay gaaladu anaan daabaduu rariine kortay dareeraan anaan diraduu qabaane anigaan dariiqiyo wadada dawga sii mari anaa diiday maantulahaa deeqdan iiga hooye diinkayga anigan ku galan dabadinaareede anaa labada darootan hore derejo moodeyne markay duushay gaaladu anaan daabaduu rari
kortay dareeraan anaan dira duuqabaan anigaan dariiqiyo wadada dawga sii mari laakiin jawkacay wadaysiin isalay sameecooyinkiiyo hataa jawhabtiaragto inuu eegahay kuntinabay hariga wabdaada magamaddaynkaniyo jeekide idiisayo waxaa ku dhacaysa iyo dariide waxay oosa suuteenda waagama saariyeede kusaweerarbay koorbarka ahnagu jidayeede anigana jibrayilhashay sharaysahaaside ejayga hortiisayga saasigaga jidaanila sikaygii caddaabee amlay jadactusiyende iraanyaday inadaceen jilee afkeediide iday kuugu jeexeen madliga jararacdiiseego ilaa yeesiroo ku jarjaray jirarka umooda osalaysigiraa ku iri jalowiradade iseensigiray indigu kuu jilalide ujeedaaladiida wadnimajirka soo rugayde irkadamahaynkuug magaan jiriyo buuxide matangow ilaadabaad afkay iga dukayeyde udaagay jalaagale degbankaba igeele wardaanka reebana jogtayon marolka daydaaday idin kale nadiifode xasigu idin jadligeede kalaadaysinego ii hortacayka kaleed helayde buraha xanuunkale markii laygu jeeganday iakayga soo baxay darkiisii talaabayaadeen markay sidaasitay sii orday iga dhunkirtaande sikaygii bahalbaa xanayo sitayirigtaydeen ilmadiyo baruurtii guryaa sibux ka siiyaadeen isidadiyo beeraha sikay igaga jabeende haddaanaysigaaray kolkay laga jiroyaade weligood waxaa lagu jiraa jirib dhigdigande farayeysi waa jiribay iyo jawga soo baxeede khiyaartana daawataay intaas waxaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ah ee markaasi idinka imaanaya stuudiyahaanu ku leenahay magaalada buuhoodle ee markaasi aanu ku lafagulanay taariikhdii daawashada filayo in intiina badan aad ka hesheen tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kan la mid ah oo anigoo ah maxamed cismaan cabdinuur oo markaasi barnaamijka idiin daadihinayay tan iyo kulanti dambe asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ninka gaalay caynabo intuu galaasyadu qaatay gubniyaasha fooska ninkii gawrac ugu jiray sidii boodha geesana ninkaa gadadu mareeye ingiriiska goolka ninkii guduubidu loogay guutooyinkuu waday ninkaan galan ka sii daynin
gedligaanadu siday ninkii goorta kaaga qaale geesaafka caadameed ninkii kaga galaydhsiiyey gedigeedna saarada ninkii gomantaa u gooyey sidii caydh gorfaale ah ninkii gogolba meel aadeshe geyigabaa ninkii galengeshaye guryo kaaga dhaartay gebaagabee intuu wacay ninkii libin ku geeraarey gebaagabee intuu wacay ninkii libin ku geeraarey gaboodii dagaalada ninkii guusha kaala laabatay geesaha ninkii laga maray ee hadba laga gaadhay garbiduu ku tiirsaday ninkaan cidii ka guulaynin ninkaa yidhi golmaalan waa miduu galay wadkeese